السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran sidan horeyba u shaacinay waxaan soo gudbin doonaa barnaamijyo taxane ah kuwaas oo ku saabsan guud ahaan immigrationada iyo fiisooyinka sharciga ah ee ay ogol yihiin dowladaha qaar in dalkooda lagu yimaado ama lagu soo galo sida America, Australia iyo guud ahaan wadamada Yurub. Waxaan u soo qaadanaynaa ayaana ah maadaama dadka Soomaalidu in badan oo kamid ah ku nool yihiin wadamada iyo qaaradaha aan soo sheegnay. In badan oo kamid ahna hadda naawilayaan sidii ay ku tagi lahaayeen. Sidaa darteed muuqaalkan waxaan isku kortaagaynaa Canada gaar ahaan mid kamid ah fiisooyinka ay bixiso ee loo yaqaan temporary resident visa. Anagoo ka eegi doona dhinacyo kala duwan sida nooca fiisaha, yaa bixiya, yaa u baahan ama inta badan isticmaala, noocyada uu ka kooban yahay fiisahan, shuruudihiisa, sidee loo dalbadaa ama loo xareystaa, maxaa ku habboon qofka doonaya fiisahan. Waanigoo Saacid Xaaji Aadan ah, soo dhawaada mar kale. Ma doonaysaa in dacwad lagu qoro ama lagu diyaarsho, in la talin dhanka kayskaaga ama dacwadaada aad hesho, in khaladaadka kayskaaga ku jira laga saxo, in su'aalaha interviewga laga caawiyo, in kayskaaga lagugu turjumo luqadaada hooyo, in lagu sii tababaro qaabdhaca interviewga. Haddaba haddii jawaabtaadu haa tahay, guud ahaan xafiisyada iyo garyaqaanada Saacid Agents waxay diyaar ku leeyihiin inay ka caawiyaan dhammaan adeegyada aan soo xusnay. Wixii faahfaahin intaa dheer, fadlan kala xiriir WhatsApp number-iska shaashada kaaga muuqda. TRV oo laga soo gaabshay temporary resident visa ayaa ah fiisa deganaansho oo ku meel gaar ah. Waxaana oran karnaa waa dukumiinti socdaal kaasoo kuu ogolaanaya inaad Canada ku gali karto, sidoo kalena kuu ogolaanaya inaad muddo cayiman ama ku meel gaar ah aad Canada ku noolaan karto. Sida caadiga ah, fiisahan waxaa bixiya xafiisyada immigrationka Canada, waxaana badanaa loogu yeeraa fiisaha booqashada ama fiisaha dalkugalka. Yaa u baahan fiisahan? Sida caadiga ah, muwaadiniinta wadamada intooda badan waxay u baahdaan ama dalbadaan fiisahan si ay u soo galaan dalkan Canada. Noocyada uu ka kooban yahay fiisahan ama ugu caansan waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo 3 qaybood. 1. Visitor visa ama fiisaha booqashada. Fiisahan waxa uu kuu ogolaanayaa inaad Canada ku tagto qaab dalxiis ama booqasho sida qoyskaaga, asxaabtaada iyo wixii la mid ah. 2. Waa student visa ama fiisaha ardayga. Fiisahan waxa uu kuu ogolaanayaa inaad dalka Canada wax ku barato, gaar ahaan macaahidda waxbarasho ee loo qoondeeyay dadka ajaanibta ah. 3. Work permit ama fiisaha ogolaanshaha shaqada. Fiisahan waxa uu kuu ogolaanayaa inaad Canada ka shaqaysan karto waqti cayiman ama ku meel gaar ah. Haddaba waa maxay shuruudaha fiisahan? Guud ahaan shuruudaha fiisahan waa mid ku xiran nooca fiiso ee aad dalbatay. Si kastaba ha ahaatee, shuruudaha waxaa ka mid ah inaad la timaado passport sax ah, warqadda caddaynta originkaaga ama dhalashada hadba sidaad u taqaan, warqadda caddaynta dakhliga aad haysato ama aad ku dabirayso naftaada inta aad Canada joogto, warqadda aqbalaadda DLI ee la xiriirta fiisahaaga ardaynimo, warqadda dalabka shaqaalaha sida in shirkad ama kambani Canadian ah ku soo dalbaday si aad ugu shaqayso, warqadda caddaynta caafimaadka, warqadda ama shahaadada caddaynta dembi ee booliiska, police clearance. Sida ugu fudud ee loo dalbado ama loo xareysto, waxaad ka dalban kartaa TRV online ama waxaad isticmaali kartaa by email. Habka loo dalbado codsigan online-ka ah guud ahaan waa mid fudud. Waqtiyada dalabaadka ama process garaynta fiisahan waa ay kala duwan yihiin, waana mid ku xiran goobta iyo nooca fiisaha aad dalbanayso. Sidoo kale waa muhiim inaad daacad ka ahaato oo aad run ka sheegto codsigaaga la xiriira fiisahan marka aad dalbanayso. Bixinta macluumaad been ah ama marin habaabin waxa ay keeni kartaa in codsigaaga la diido ama fiisahaaga laga noqdo. Sidoo kale fiisahani kuma siinayo damaanad qaad buuxa oo ku aadan gelitaanka Canada, laakiin saraakiisha immigrationka ayaa iska leh go'aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan in lagu ogolaado iyo in kale. Ugu dambayn, haddii macluumaadkani ku anfacay, fadlan la wadaag asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. Wixii su'aal ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska. Intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, amaana Allah.